Mareekanka ayaa siiyay diyaarado ay kula dagaalamayso dawladda Kenya dagaalamayaasha al-shabaab oo dagaal ba'an kula jiray ciidamada wadanka. Mareekanka ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaarado dagaal ugu deeqay ciidamada dawladda Kenya si ay ula dagaalamaan al-shabaab. diyaaradahan oo ah nooca dagaalka ayaa gaarayay ilaa 6 waxaana la sheegay in Kenya loo siiyay si ay ugu adeegsato howlgallada ka dhanka xarakada al-shabaab. Stephen Sowan oo ah taliyaha ciidanka ee Africom oo Kenya ku wareejiyay diyaaradahan kadib munaasabad ka dhacday Nairobi ayaa sheegay in arrintan ka qayb tahay iskaashiga dhanka amniga ee ka dhaxeeya dawladaha Mareekanka iyo Kenya. Sidoo kale wuxuu intaa ku daray in ay sii wadi doonaan taageerada military ay siiyaan ciidanka Kenya isla markaana ay mar kale ugu deeqi doonaan diyaarado kale. Saraakiil sarsare oo kamid ah militariga Kenya oo madasha ku sugnaa ayaa ka mid ah celiyay diyaaradaha loogu deeqay dalkooda waxayna sheegeen in laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ay ka wadaan Kenya iyo Soomaaliya. Mareekanka ayaa qayb ka ah dagaalka al-shabaab wuxuuna duqeymo ka fuliyaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee diyaaradaha dagaal ee haatan la siiyay Kenya ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay al-shabaab ay kordhisay weerarada ay ka fuliso wadankaasi waxaana dhawaan ay weerartay saldhigga ciidanka Kenya iyo kuwa Mareekanka ay ku leeyihiin gobolka xeebta